marka ugu horeysa waxaan salaamayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare agaasimaha guud ee waxbarashada maamulka gobolka Banaadir agaasimayaasha ka socda maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiinta iyo macallimiinta iskuulka kooga Luulyo ee degmada Holwadaag gudoomiyaha degmada Holwadaag dhammaan ciidamada booliiska ee ku shaqada leh ilaalinta imtixaanaadka saxaafadda dhammaan waxay idinku salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام maanta waxaa sharaf noo ah inaan maanta imtixaanaadkiisa fasalka 8aad aan ku dahfureyno iskuulka kooga Luulyo ee degmada Holwadaag sidaad ogtihiinba iskuulaadka dhammaan dugsiyada 8aad imtixaanaadkooda ayaa maanta loo fariisanaa gobolka Banaadir oo dhan 72 goobood ayaa maanta imtixaanaadka loogu fariisanaa ardayda fariisanaysa marka sida uu agaasimaha guud uu sheegay 26688 arday ayaa maanta imtixaanaadka u fariisanayo 28 arday oo kamid ahna waa ardayda baahiyada gaarka ah oo sanadkaaniiti kow u suurta galay inay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ah ee galaaska 8aad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan waalidiinta iyo ardaydaba dadaalka dheer soo wada bixiyay ilaahay u suurta galiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta inay u fariistaan imtixaanka galaaska 8aad waxaan leeyahay Allah u fududeeyo waxaan leeyahay inaa guuleysatiin ayaan ilaahay ka baryeena ku dadaala galaaska 8aad waa galaaska loogu gudbi lahaa dugsiga sare sidaad ogtihiin imtixaanaadka wuxuu u baahan yahay inaad ka fikirtaan inaad casharada ku noqotaan inaad waqtiga ilaalisaan waxaan rabaa ardayda iyo waalidiinta inaan kula dardaarmo afarta maalin oo imtixaanka soconayo in waqtiga la ilaaliyo waqtiga imtixaanka loo fariisan lahaa ardayga inuu ka soo hormaro asoo marayo sifooyin kala duwan haddee noqon lahayd wadooyinka haddee noqon lahayd baaritaanka ciidamada ay sameynayaan inaysan ka habsaamin imtixaanka hal imtixaan haddaa ka habsaantid waxaan isleeyahay waa caqabad kugu soo kordhay ardayga waxaan leeyahay inuu ku dadaalo waqtiga inuu ilaaliyo waqtiga waalidiintana inay garab ku siiyaan oolaadoodii inay waqti hore ee imtixaanka ay u soo diyaar garoobaan insha Allah waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka Banaadir oo sanadkan si madax banaan ah oo imtixaanka u qaaday asaga soo diyaariyay asagana saxay doona imtixaanka asaga wixii imtixaankaas quseeyana agaasinka guud ee waxbarashada gobolka Banaadir oo hooshaasiti oo hormuud u yahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo mar walba garab nagu siiso wax walba horumar ah oo u tilaabsanayo waxbarashada gobolka Banaadir sidaad ogtiin sanadka hore annaga iyo wasaaradda ayaan isla qaadnay laakiin sanadkan gobolka Banaadir ayaa qaadayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta qayb ka qaadatay imtixaanaadka soo diyaarinteeda intii la diyaar garowgiisii iskuulaadka iyo jaamacadaha nagu siiyay fursadda nagu siiyay inaan ku qaadno imtixaanaadkana ayagana waa u mahad celinaa dhammaan inta ka qayb qaadatay iyo inta ka qayb qaadan doontaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin insha Allah maamulka gobolka Banaadir mar walba wuxuu diyaar u yahay horumarinta waxbarashada dhalanka magaalada Muqdisho sidaad ogtihiin dhalankeeni waxbarashadoodii waa meesha kaliya muhiimka noo ah ama awoodeena ama xoogeena inaan iskugu geyno aan rabno arday aan aqoon lahayn ama dhalinyaro aan iskuul aadeynin in caasimadda aan lagu arkin waxaan rabnaa caasimadda inuu noqdo aqoon-yahan wada joogo waxtar leh ifbaxayo dalka horumarkiisa iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan dhalinyarada sidaad ogtihiin iskuulaadka ugu badan ee lacag la'aanta ah iyo iskuulaadka aan rajaynayno inaan hadda dib u dhisno aan diyaar garowgeeda wadno insha Allah shacabka Soomaaliyeed inay garab nagu siiyaan annagana inaan ku dadaalno waxbarashada awlaadda Soomaaliyeed ee caasimadda ku nool insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan horumar fiican aan u talaabsaneyno inaan maanta meesha aan joogno berina aan ka talaabsan doono meel ka horumarsan ama ka fiican inaan gaarsiino awlaadda inaan diyaar u nahay haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir oo hogaaminayo duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Cumar waxaan naga go'an awlaadeeni inay noqdaan awlaad waxtar leh awlaadda inaan ka ilaalin waxyaalaha xunxun inay noqdaan aada iskuulaadka inaan dib u soo celino ardayda ay iskuulaadka wada aadaan insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasiir soo dhawow